نور الدين ديني xogayaha duulista iyo hawada xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu si adag uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo sheegay in hadda aanay ahayn xilligii loo baahnaa inay hadlaan asxaabta siyaasaddu balse ay tahay in shacabku sameeyaan kacdoon siyaasadeed waxay ognahay mashaariic fara badan oo ku xeernaa oo heshiiska lagu meelmariyay oo ahayd in Soomaaliya loo fuliyo inaan fuliyo waxa kamid ah caafimaadka waxa kamid ah biyaha waxa kamid ah waxbarashada waxaasi oo dhan wax laga qabtay ma jirto waxaynu arkaynay isniintii in bebraad DB walay afar ceel ku futay manahay wixii la inoo sheegay intaas waxay ahaayeen waxyaabo ka sina weyn ama ka balaaran markaynu eegno dhibaatooyinkii duruufaha maanta taagan ee siyaasiga shacabka reer Soomaaliya waxay u baahan yihiin in la yimaadaan kacdoon bulsho waayo way dhaaftay xilligii arintan laga hadli lahaa ama maxay toolay kelmado laga oran lahaa waayo waxaynu u baahanay isla xisaabtan dhab ah waxyaabahan ka dhaxalnay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye waxa kale kamid ah in dadkii la qaybiyay oo hab qabaliyo loo kala fadhiyo iyadoo looga faa'iideysanayo sidii loo maali lahaa resource-ka ama kheyraadka uu dalka leeyahay geesta kale xogaya Nuuraddiin ayaa waxa uu ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu dibeegis ku sameeyo heshiiska dekedda weyn ee Berbera oo ay xukuumaddii hore madaxweyne Siilaanyo la saxeexatay shirkadda weyn ee DB World ajiibka halka camalta ka sheegna waxa kamid ah inaan wali la dhisin lana bilaabin dekeddii Berbera ee 400 mitir ahayd dekedda hadda inoo dhisay waa 700 mitir 350 ruushka inoo dhisay 350 Mareykanka inoo dhisay afar boqol iyo kiilo wala dhisay sanadka koowaad buu ahay hadii la bilaabi waayo in heshiis ku guro taas may suuragal maanta wax ka soo naasacad ma jiraan saddex agafooy la soo isticmaalay oo gaariya la inoo keenay dekad baa lagu dhisay qalabkiina ma hayno timeline-kii rasmiga ah ee lagu bilaabi lahaa iyo kii uu ku dhamaan la mid sidaas oo ay tahay waxa halka yaala wax qiyaamo qaran waxa iyaduna aan cadeyn 90% Itoobiya la siiyay مسير جري دونا مسير شقين دونا مسوي هايدون بركة وحيابها صورنا ووحمد مذو قليل تعامل كنا قد حياة إنك هي إماراتك ما دام ما أنت صدق سنة اللي قد شو وحين أوبا هنحي إن دبوا إيجس رسمي يلا قصة مايو هالشيء كأي سومالنا لقى شيء إماراتك واي وح كستأردن كإماراتك كحنا هالشيء كاسوي كذا ما عليه سويه كحنا دك سومالنا ولي وقبي أو كمان ما وعيد روس بيرشيا تلفزيون يونيفرسال هرجيسة